diyaaradani waa mid ka kooban 3 dabaq oo kala sareeya baaxadeeduna waa ilaa 4,000 fuud waxaana u suuragala dadka ku sabraya inay ka galaan ilaa 3 albaab oo kala duwan marka aynu telefishinka ka daawanayno madaxweynaha Mareykanka oo ka soo degaya diyaaradda waxay macnaheedu tahay inuu caadiyan ka soo dego albaabka dabaqa dhexe suxufiyiintuna waxay ka soo galaan diyaaradda albaabka dambe loomana ogola inay ka soo galaan albaabka rasmiga ah sababo dhanka ammaanka ah dartood haddii madaxweynaha ama cid kale oo wehelisa oo xaalad caafimaad oo degdeg ah ay ku timaado xilliga duulimaadka waxa diyaaraddu la socda tiim caafimaad oo ay wax kastaaba u dhameystiran yihiin waxaana ku dhex yaala qolka qalliinka waana hanaan caafimaad oo xanaanadii iyo daryeelkii ugu sarreeyay loogu talagalay haddii uu dab ka kaco diyaaradda dhexdeeda amaba ay dhacaan weeraro dhanka nukliyeerka madaxweynaha waxaa diyaaradda nooceedu yahay E4B ugu dhex diyaarsan dariiqooyinka ammaan ee asaasiga iyadoo awood u leh diyaaraddu inay muddo dhowr maalmood oo xidhiidh ah duulimaad ku jirto iyadoo aan marna meel kaliya fadhiisan xilli ay dusheedana ku qaadi karayso howlwadeennada qaabilsan safarka iyo ammaanka madaxweynaha oo gaadhaya ilaa 747 qof inkastoo duulimaadka caadiga ah ee ay la qabsatay uu yahay saacadiiba inay guyso xawaare gaadhaya 933 kilomitir haddana waxa ay diyaaraddaasi ku socon kartaa xawaare gaadhaya 1,050 kilomitir saacadiiba diyaaraddan ayaa shidaalka ku qaadan kartaa hawada sare gaar ahaan masaafo jooga sare ah oo gaadhaysa 35,000 oo fuud waana diyaarad qolofkeeda sare u diyaarsan yahay inuu adkaysto waxyeelada ka iman karta qarax atoomika ah oo dhulka ka dhacay xilli ay iyadu duulayso waana farsamada u suuragelinaysa inay dadka saaran ka nabad galaan weerar dhanka nukliyeerka waa diyaaradda ay lama huraan ka tahay inaad xidhato oo aad xidho telefoonkaaga moobilka marka aad dusheeda saaran tahay laakiin waxaad dusheeda ku rag ilaa 85 layn oo telefoon ah waana isgaarsiinta uu madaxweynaha Mareykanku kula xiriiri karo oo kula hadli karo bagcad kasta oo dunida ah meel kasta oo isagu marayo diyaaraddan waxaa ku rakiban kamaradaha sawirka ka qaadi kara ama akhriyi kara boorarka dhulka laga taago ee halka ay duulayso u jira masaafo dhan 8,800 mitir waxaana u suuragala madaxweynaha Mareykanku inuu diyaaraddaasi u isticmaalo xafiiskiisa caadiga gaar ahaan haddii xaalad ammaan darro soo food saarto aqalka cad ee dalka Mareykanka